loo yaqaano kaalmaha iyagu isticmaalo fustooyinka ayaa saaka u dab qabsaday arooryadii hore ee magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Kaalintan Soomaaliyeed kaalmaha iyagu isticmaalo fustooyinka ayaa waxa dabkaasi uu dhaawacyo kala duwan ka soo gaaray bulshada iyadoo soo gurmatay dabkaasi. Dabkan oo ahaa dab isagu baaxad ballaaran leh ayaa waxa gurmadkaasi qayb ka qaatay maamulka gobolka iyo waliba ka degmada Laascaanood iyo waliba bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood. Dabkan ayaa isagu khasaare badan ka geystay hanti iyo waliba nafba daawaca uu geystay. Dabkan ayaa lagu dabiibay isbitaalka guud ee magaalada Laascaanood. Kaalmaha shidaalka iyagu isticmaalo fustooyinka ayaa muddooyinkii u dambeeyay ku soo badanayay gudaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. dadku meel walba waa ka daminayeen hooyadaha ku furnaa isla markaas waxa dhacday iyadoo dabku gabagabay yahay ayaa waxa qarxay loo fustooyinka shidaal kamid ah oo xadiisan ahaa kuwa weyn kuwa dadka cawaaray ilaa iyo naamiga dadkii hore dhaawacay dadka inta dad badan waa isku isaga baxeen dad baa yara sigtay oo isagoo kaligiisa foosto baasiina foostada markuu furay waxa ka dhacay halkaas inankii foosto kale uu ku diyaarsanayay shidaalka aalaaba waxa la sameeyaa si temporary tointa looga shubo kale loo geeyo oo fudeed ahaan isagoo wixii si diyaargaraysanaya markii uu furay waxa dhacay inankii wuxuu sheegay in foostadii uumi qiiqa ay intii ay soo baxday kii uu ka shubay aduu laatan markuu ka shubay xaggii buu geeyay dib markuu ugu noqday si shubna qiiqii oo si taagan baa ul sameeyay goobaankii intii marba qabsatay aduu inankii waxaanu sameynay ciid ayaan marka hore ku daminanay markii dambe ayaa dadka qaarkii baa biyo ku shubay markaas dadku aad noogu kacay nasiib wanaag baa la oran karaa waa Ilaahay lagu mahadiyo dadku magaalada aad bay soo gurmatay inkastoo aanay jirin damdamis magaalada aanay lahayn insha Allah taala ana hadeerna ka ganacsata ahaan aan ku baaqano iyo bulshada gobolka oo dhan in damdamiska loo hawl galo khasaaraha dadka ilaa iyo hadda inta aan arkay anigu waa dhowr iyo 30 qof oo gubatay ilaa kontoniyana waa la gaarsiinaya hantidana hore aad u aragteen meeshan khasaare badan baa ka dhacay dadka muxsiniinta iyo dhammaan dadka gobolka Sool iyo dhammaan muxsiniinta oo dhan waxaan leenahay dadkan halkan hantidu ku burburtay loo soo gurmado wixii lagu gacan qaban karana lagu gacan qabto insha Allah taala dabdamiskana aynu ka wada hawl galno gudaha waa barqad Umar Ahmed Telefishinka qaranka Soomaaliland Laascaanood.